Xuska Maalinta Caalamiga ee Naafada Adduunka ayaa maanta lagu xusay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo uu soo qabanqaabiyay Kalastarka Naafada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay dadka naafada ah, ururada u dooda xuquuqda dadka naafada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Maanta isugu nimid waxay tahay in aan hortoorate marka ugu horeysa balweyneyno maalintan iyo in aanu ka hadalno saddexda qodob ee meesha noogu qoran maanta. Qodobka koowaad oo ah 10 sano oo dadka naafada ay halgan iyo dadaal ugu jireen sidii loo saxiixi lahaa ama loo hirgelin lahaa shuruuc ay leeyihiin dadka naafada ah. Qodobka labaad oo maanta aan doorbiin inaan ka doodno ee dadka su'aalo ka dhiibtaan waxay tahay bilowgii marka waxaan taaganahay shuruucda la ansixiyay sidii loo geli lahaa haddana halgan. Waxaan su'aalayaa naafadii hooyadeed ama aabaha ee indhaha ay ama lugaha u laabnaayeen hadday gaboobeen ilmahoodana aysan waxba baran ma ka qayb geli karaan ilmahooda in wax la baro ama bulshada lagu daro oo markaa wax loo qabto waa yeelanahay naafo waa nahay waqti xumaan ku soo aadnay 3 December marba saara isku imaada wax loo qabto naafad marba waa soo sheegana meeshaan ugu dhaafa bis wax qabanayo ma waxaan weydiinayaa su'aala barnaamijka ama projectkooda ku jira inay kala ogaadaan meelaha ay ku kala nool yihiin naafada iyo baahiyaha ay qabaan dadkaasi ay ku kala ogaadaan. maanta waxaan halkan u qadbaniyeenayaa naafada adduunka qaasatan naafada Soomaaliyeed. Arday ayaan qabnaa oo dugsiga sare dhameystay jaamacaday u baahan yihiin ma heli karnaa inaan jaamacadaha scholarship u helno haddaan naafana arday aniga aan dhalay waaye aniga naafo aan dhalay waxaan kaloo raacinayaa in xirfado aniga waxaan ka mid ahay naafada ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dumarka naafada dhibaatooyinka ay qabaan waa dareemi karnaa dumarka naafada iyagana waan dhiirigelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan isdhiin naafa tahay dumar ah wax waa baran kartiin waad shaqaysan kartiin bulshadana waad ka mid tihiin oo wax waad la qaybsan kartiin. Cabdiweli Maxamed oo ka tirsan mas'uuliyiinta oo ololaya xuquuqda dadka naafada ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka naafada in loo sameeyo in meelaha dadweynaha ay isugu yimaadaan oo adeegyada dadweynaha laga bixiyo oo goobahaas ay isugu jiri karaan goobaha public-ka iyo goobaha private-ka sida meelo dawladeed iyo meelo dad gaar ah leeyihiin laakiin adeegyada bulshada laga helo deliberate loogu talagalo inay soobiyaan rambiskii wheelchair-ku ku socon karay ama la marsi karay baabuurta la marsi karay ay dadka naafada isticmaalaan. Dadka ugu muhiimsan ee arintaas ay mas'uuliyadda dusha ka saaran tahay inay ku dadaalaan fulinta raadinteeda waa anaga dadka ka faa'iideysanaya sharcigan waa dadka naafada. Sanad walba maanta oo kale 3 December waxaa caalamka lagu xusaa Maalinta Caalamiga ee Xuquuqda Dadka Naafada. Soomaaliya ayaa ka mid noqotay dhawaan wadamada saxiixay xeerarka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada adduunka. Cabdi Casiis Guure Axmed, Somali Online Media, Muqdisho.